السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كل بدرسيني كي هرو كحيدسن يحي أصلي أنما لو درس لوgu talagalay dad dhalinyaro oo ama jaamacada ama wax la mid ah dhigtay oo shubahaadka dadka aan Ilaahay rumaysanayn ay soo gaadheen sadaradeed oo iska adag tahay dad waaweyn oo waayeel muslima in loo akhriyo markaan soo duuduubno mowduucaynu ka hadlay wuxuu ahaa adillatu wujuud Ilaahi subhanahu wa ta'ala adillada tilmaamisa Ilaahi jiritaankiisa iyo weynidiisa oo ay culimadu yiraahdaan cadad khalqi Ilaahi bay laagtay wa ma min makhluuqin illa huwa daliilun lillahi subhanahu wa ta'ala wax Ilaahay abuuray ma jiro oo makhluuqaadka kamida cir iyo dhulba jira ilaa iyo wuxuu cadaynu yahay Rabbi subhanahu wa ta'ala laakiin culimada philosophiga iyo science-ka iyo cilmul kalaamka iyo qoliyahaasi markay wada hadlayaan qaab ay wada hadlaan baa jira ay wuxuu istidlaalaan waxaynu maalintii hore soo tilmaamnay daliilkii loo yaqaanay daliil التصميم أو دليل العناية أو دليل النظم دليل كان فرصمة كتوسينية لا بس ده دليل وكلينو شيء وحينو كقعدنو وحنقصها الرئيسينية واحد أهدان المبدأ البشري أما anthropic principle المبدأ البشري مبدأ أنا يوبحي وحويان dunidani siday u dhisan tahay bay leeyihiin dhammaanteed cirkeeda iyo dhulkeeda iyo waxeedaba marka la isku daro waa kownun ucidda liistiqbaalina bay dhahdeen waa duni loogu talagalay inay innaga ina qaabisho yacni macquul maaha bay leeyihiin aan tusaale fudud oo dadku fahmi kara bixiyo Sir Anthony Flew oo ahaa ninkaynu nidhi 65 sannadood buu mulxid ahaa waana malaaxidadii qarnigii 20aad ninkii ugu weynaa from 1950 aynu nidhi laga soo bilaabo doodii Cambridge lagu qabtay ilaa iyo waqti dambe 2004kii agagaarkeeda la soo gaadhayo wuxuu ahaa doodyahankooda ugu weynaa ama jaamacad ama meel kastoo lagu doodayo loo yeedho Sir Anthony Flew markuu qoray buuggiisan la yidhaahdo There is a God oo Ilaahay rumeeyey ayuu mas'alada markuu ka warramayo wuxuu yiri si qofka caadiga uu fahmi karo wuxuu yiri waxaad sawirataa adigoo hudheel soo degay qurfadii hudheelkaaga aad timi waxaad ugu timi buu yiri sariirta hudheelka ku taala xaggeeda sare suurad baa suran ah tii qolkaaga saareyd oo kale furaashka meesha saarani waa kii sariirtaadii yaalay oo kale dhulka sijaayada ku gogolani buu leeyahay kaarbadka dhulka yaala waa kaarbadkii gurigaagii yaalay oo kale miiska yar flowerka saarani waa flowerkii miiskii gurigaaga saaraa buu leeyahay miiska caadiga waxa saaran buu yiri buuggaasi waa gabay waa kii aad jeclayd gurigaaga aad kaga timid dabcadiisii ugu dambaysay oo miiska saaran baad ugu timi buu yiri waxa meesha saaran buu yiri jariidad waa jariidadii aad akhriyi jirtay markaad meeshaadii joogtay talaagadii qolka taallay baad furtay buu leeyahay markaasaa waxaad ugu timi sharaabadii aad cabbi jirtay baa ku jira chocolate aad cuni jirtaa ku jirta biyaha dhaladii aad iibsan jirtay nooceedii baa ku jira telefisyoonkaad furtay buu leeyahay kanaaladii aad dhagaysan jirtaa ku jirta filmadii aad daawan jirtaa saaran muusiga meesha ka socdaad maqashay waa muusigii aad jeclayd gurigaagii aad ku dhagaysan jirtay buu leeyahay xamaamkii baad gashay buu leeyahay markaa WC-gii qolka ayaad gashay xamaamka waxaad ugu timi buu yiri kalarka marsani waa kii marsanaa gurigaagii aad jeclayd waxaad ku aragtay buu yiri
shaambooga meesha saaran iyo saabuuntu waa kuwii aad isticmaali jirtay. meel kastoo aad qolkan iyo intan eegta buu leeyahay wixii gurigaaga yaallabee yaalla. waa maxay buu yidhi aragtidaad rumaynaysaa markaa? ma waxaad rumaysanaysaa coincidence, sidfa uun, bal ilaahay amarkii qolkaagii unbaa la keenay meesha? mise waxaad rumaysanaysaa buu leeyahay in cidi kaa warbixisay oo baahiyahaaga oo dhan cidi ogayd oo dabeetana aad qolkan ugu timi wax allaaliya wixii aad u baahnayd buu leeyahay. meesha waxa taalla buu leeyahay dunidanaynu ku nool lahay iyo qaabkay u dhisan tahay, wax kasta oo nolosha bini'aadamku u baahan yahay baa taalla, weliba qadarkii uga baahnaa buu leeyahay. haddii kor looga qaado way fasahaadaysaa noloshu, haddii hoos looga dhigo way fasahaadaysaa. iyo inugu sii jaangooyey. marka argumentkan waxay yidhaahdaan fine tuning bay yidhaahdaan. fine tuning waa dabdi daqiiq. maalan raadiyowga irbadda markaynu saarayno mid yar baa jirto tashuush ka ilaaliso, aad irbadda markaad meel la hesho codku clear noqonaya. haddaad xagga u yaro qaaddo ama waad ka baxaysaa ama codkaa tashuush noqonaya. haddaad xagga kale u qaaddo ama waad ka baxaysaa ama codkaa tashuush noqonaya. irbaddan aynu wadnaa waa xadhig yaroo ku xidhan capacitor, variable capacitor, sheegaya hadba capacitaniskaad rabtaa intuu leegiye. laakiin waxay yidhahdaan waa fine tuned. meesha markaad saarto unbaad codkaa helaysaa. waxay leeyihin dunida gebadeeduba meel bay saarantay, jiritaankeeda iyo innaga nolosheedu isku xidhan yahay. oo haddii wax kasto sida ay maanta yihiin haddii in yar laga dhaqaajiyo noloshu aanay gebagaboobayso amase aanay jiraynin. walidalik baa waxay yidhaahdaan freeman dyson ninka la yidhahdaa wuxuu leeyahay mar kastoo aqoonteennu badataba waxa sii badanaysa buu leeyahay nolosheenna iyo universku siday mutataabiq, siday isu waafaqsan yihiin. waxaana inugu sii badanaya buu leeyahay dareenka ah war waa duni laynoo diyaariyey tani inay tahay baynu rumaysanaynaa buu leeyahay. mabda'aasaa waxay ku tilmaamaan philosophersku anthropic principle bay yidhahdaan, the strong anthropic principle, almabda albashari alqawi. mabda'a kani wuxuu sheegayaa markaa, waxay yidhaahdaan waa mid kaloo ka mida saynisyahanada wuxuu yidhi tailor made for man weeyaan buu yidhi. adduunka kani markaad marada tolanayso haddaad u tagto, haddaad dee maro suuqa taalla soo iibsatana si unbay saataan aan xidhanaya ama kaa yaro ballaadhnaanaysa ama si unbay kaaga waasac noqonaysaa. laakiin haddaad daawaarwalaha u tagto oo uu qiyaasta ku saarsaaro wuxuu kuu tolayaa maro adiga lagugu jaangooyey. wuxuu leeyahay dunidanaynu joognaa waa tailor made for men, waa mid loo tolay bini'aadamka. bini'aadamkaa lagu jaangooyey sida ay u taallo. taa macnaheedu waxa weeyaan masaladani haddaan qur'aanku siduu u dhigo u tilmaamo, qur'aanku wuxuu dhigaa masale la yidhaha ataskhiir. dunidan waan idiin sakhiray baa ilaahay leeyahy. wax kastoo aa u baahnaydeen ayaan dhex dhigay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy alam taraw ana allaha sakhara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlard وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير في سورة اللقمان. إلهي وحلي ورميدان أركينين سيدان إذنكو سخري إذنكو سهلي إذنكو هبيي ما في السماوات وما في الأرض. إرك واحد شراء يلولك واحد شرابا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. iyo ilaahay nicmadiisa siduu idinku daboolay mid muuqato aa garanaysaan iyo mid qarsoon aydan garanaynba. haddana ilaahay wuxuu nafsi laaya ku leeyahy wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir. haddana dadka waxaa ka mida baa ilaahay leeyahy mid rabbiya arrimihiisa ku doodaya aqoon darro daraaddeed, hanuun la'aan iyo kitaab la'aan daraaddeed u doodaya baa ilaahay leeyahy. yacni kuwa ilaahay arrimihiisa ku doodaya laa cilmaan agtooda oolin, walaa hanuun baan oolin, walaa kitaab muniira baan oolin. aayaadka mar baan idiin akhriyi doonaa. laakiin markaynu masaladan tilmaamayno waxa ay tilmaamayaan oo sheegayaan dunidu sida ay u taallo wax kastoo ka mida oo wax laga beddelaa waxa ay sheegaysaa inaanay noloshu jiri lahaynba.
mararka qaarkoodna waxay sheegaysaa inay in yar ku baabi'i lahayd. walidaalika baa qolada physicsku waxay tilmaamaan cosmic constants waxay ku tilmaamaan in physics waxa laaliya waxa constant numberska la isticmaalo haddii mid ka mida uu isbeddel ku dhaca bay leeyihin nolosha ma jirteen. sidaa awgeed baa waxa ay tilmaamayaan maalan mid ka mid ah oo weliba mulxida baa wuxuu qoray sir rice odayga la yidhaahdo ayaa wuxuu qoray buug la yidhaahdo the six numbers, 6 number oo mid waliba gaarkii yahay oo mid walba haddii slight change uu ku dhaco aan dunidu jiri lahayn. waa 6 ka mida constantskaasi. culimmada qaarkood waxay gaadhsiinayaan dhowr iyo 20 constant. hadda ragga badh waxay gaadhsiinayaan 100 constant wax ku dhodhow. aan wax ka tilmaamo markaasaa la fahmi karaa. maalan waxay leeyihiin dunidu maanta theoryga rumaysan yihiin waxa weeyaan inay qarax ku dhalatay big bang. waxay leeyihiin davis oo kale ama stephen hawking oo kale labaduba inay mulxidiin yihiin bay u badan tahay. haddana dee markay masaa'ilka kan timaado marmar baa warku kaa baxsanayaad iska qiranaysaa. waxa uu leeyahay difference of expansion, dunidu way qarax markuu dhacay way fidaysay. fidistaasi bay leeyihiin speedka ay ku socoto fidistaasi xawaaraheedu haddii ay isbeddesho 10 to power of 18 of a second, 10 to power of an 18 of a second waa imisa? waa second loo qaybiyey 10 la dul saaray 18. waa second loo qaybiyey maxay 10 18 0 la dhinac dhigay. hadda waa 1 second. waa 1 second oo loo qaybiyey in ku dhadhow million trillion. millionku waa 6 0, trillionkuna waa 12 0, intaasaa 18 0ya. hal second oo loo qaybiyey 1 milyan oo trillion partsa loo qaybiyey in ka mid ah timeka intaa leeg. waa time intee leeg? timeka intaa leeg hadduu accelerationkeeda difference ku jiro adduunka kani ma jireen bay leeyihin. oo waa maxay? hadduu ka badan yahay bay leeyihin dispersing baa ku dhici lahaa. dunidu beri horay baabi'i lahayd, baaba ay gaadhi lahayd. hadduu ka yar yahayna gravitational forceka ka badan lahaayo contraction. waxaa jira waxay yidhaahdaan alinsixaaq alcadiim iyo alinfiraat alcadiim. soo duuduubanka dambe waxay rumaysay in dunidu mar dambe la duuduubi doono. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa yowma natwi الsamaaءa katayi sijili lilkutub. soo duuduubankaa hore u dhici lahaa bay leeyihiin. marka muxuu leeyahay Paul Davis wuxuu leeyahay tani waxa ay sheegaysaa fine tuned inay tahay speedkan in lagu qiyaaso 1 divided by 10 over 18 of a second. accelerationku hadduu isbedelo xawaaruhu intaa in leeg hadduu isbedelo inaan duniyo jiri lahayn. qiyaasta caynkaasa cidda samaysay buu leeyahay waa cid caqli badan oo wax badan ka fakaraysay. waa intelligence baa ka dambeeya buu tilmaamaya. waxay yidhaahdaan qaraxaas densitigiisu cufnaanta hadday in yar ka weyn tahay markiiba wuu dumi lahaa. hadday in yar ka fududahay markiiba wuu baxsan lahaa. yacni ma jireen. waxay tilmaamaan the four forces, afarta quwadooda dunida ay wax ku qiimeeyaan waa electromagnetic force EMF, quwadda leydhka, iyo quwadda gravitationka isjiidadka, iyo labada quwadooda nuclearka ah strong nuclear force iyo weak nuclear forceka. waa mas'alo ciddii physics dhigatoon loo sharxi karo. afartaa quwadood bay leeyihiin haddii mid waliba waa specific in bay ku go'antay. in yar slightly haddii mid qudha laga bedelo dunidu haba yaraatee ma jirteen bay ku tilmaamayaan. waxa ay sheegaan war meeshani ilaahay wuxuu leeyahay wakhalaqa kulla shayin faqadarahu
taqdiira baa ilaahay yidhi wax kasta rabbi waa abuuray laakiin wuxuu abuuray isagoo jaangooyey jaangooyn qiyaas loogu talagalay iyadoo ku socota maalan waxay tilmaamayaan wax kasta oo dunidan yaalla aan tusaalayaal kooban oo dadku caadi u fahmi karo wax ka tilmaamo markay leeyihiin kownun ucidda lana waxay dhahdaan dhulka qoloftiisu dhulku marka la dalooliyo hoos loo socdo inta hoose waa maxay waa dhoobo oo kale waa melting waa wax cajiin marka qolof buu leeyahay qoloftiisa meesha ugu yari waa 70 kilomitir waxay dhahdaan qolofta dhulku intay hadda tahay hadday ka weynaan lahayd dunida ugumayna nimaadeen bay dhahdeen wax oxygen iyadaa nuugi lahayd wax carbon dioxide-ana looguma yimaadeen that means noola kuma noolaadeen hadday in yar ka yar tahayna waa cagsiga maalan waxay leeyihiin atmosferka hawadan cufnaan bay leedahay culays bay hawadu leedahay haddii culayskeedu uu intaa ka fududaado densitygeedu culayskeedu hadduu intaa ka fududiyay hawada way kor bay u bixi lahayd hadday kor u baxdana waxba inagamay celiseen iminka xidigaha dhaca iyo waxaynu aragno nayaasigta iyo shuhubka iyo waxaynu aragno dhan asteroidskaasi xidig baa dhacday Soomaalidu tiraahdaa laakiin inama soo gaadho wuxuba dhulkay ku soo dhici lahaayeen bay leeyihiin that means noole kama jirteen waxay tilmaamayaan oxygen-ka dunida maanta waa 21% hadduu in yar ka badan yahay bay yidhaahdaan every 1% oxygen-ku uu bataa bay leeyihiin 70% buu kordhinaya inay dunidu gubato macnaheedu waxa weeyaan oxygen-ku hadduu 22 ahaan lahaa hadduu 21 ka yahay hilaac kastoo dunida ka dhaca way guban lahayd hilaacu markuu billig yidhaahdo kayntoo dhan baa ololi lahayd wax jiraa ma jireen magaalooyinkaa ololi lahaa waxay leeyihiin cadceeddu intay inoo jirto distance-ka inoo jirto hadday ka fog tahay waynu engegi lahayn hadday ka dhowdahay waa la guban lahaa dayaxu inta uu jiro hadduu ka dhow yahay badda caarigeeda mawjadaheedu labada goorba wuu ina qarqin lahaa marna xagga kale uga bixi lahayd marna waa ka guuri lahayd hadday ka durugsan tahayna waa kadalik dhulka wareegiisu bay leeyihiin intuu yahay hadduu ka dheerayn lahaa iyo hadduu ka gaabin lahaa labadaba nolole ma jirteen hadduu ka gaabin lahaa macnaheedu waxa weeyaan habeenkaa dheeraan lahaa iyo maalintaa dheeraan lahaa sida planetiska kale marna waynu guban lahayn cadceedda tirada badan leyna haysa marna qabow baynu u dhiman lahayn qabowga tirada badan leyna haya dhulku dayax maadaama uu magnetic fieldkiisu hayo tilted weeyaan 23 degree 27 wuu yara qalloocabay leeyihiin dhulku qalloocaasi haddaanu jiri lahayna uu toosnaan lahaa bay leeyihiin dhulku sidaa u taagnaan lahaa imika waa yara sidaa hadduu sidaa u taagnaan lahaa bay leeyihiin roobka da'ah north polka iyo south polka labada qudbo qura roobku heli lahaa dhulka intiisa kalena saxaaray ahaan lahay maalan waxay tilmaamayaan haddaanu tiltidhkaasi sidaa ahayn ama roobka ama dabaylaha ama biyaha badda haddaad tidhaahdo hadday intan ka yara dhanaalaan lahaayeen nololi kama jirteen hadday intan ka macaanaan lahayd nololi ma jirteen grafitiga dhulku hadduu intan ka yara weynaan lahaa waxay leeyihiin maroodiga xayawaanka leegi xasharaadku leekaan lahaa ma la koreen innaguna dee hadduu maroodi xasharad leekaanayo quraanyadaynu ka sii yaraan lahayn de quraanyo yaroo dhulka kor socda ayaynu ahaan lahayn the four forces mid kastoo wax iska bedelaan nololi ma jirayso buuruhu siday yihiin haddii wax laga waxay leeyihiin war wax kastoo dunidan dul saaran saynisyahanadu waxay leeyihiin wax kasta oo dunidan korkeeda saaran oo maanta aynu hayno haddii wax yar laga bedelo nololi ma jirayso idan bay leeyihiin kullu dalik waxay sheegaysaa inuu yahay tartiibun mutacamad bay leeyihiin war waa tartiib lagu talagalay oo noloshu waa nolol laynoo sii diyaariyey waa kownun ucidda lanaa bay tilmaamayaan qadaayaadka ay sheegayaan haddaan sii tilmaamo waa waxaan runtii wakhtigu ku fillayn waa waxaan wakhtigu ku fillayn
oo dee waxa ay tilmaamayaan everything wax kasta oo dunidan korkiisa yaalla oo siduu yahay wuxuun laga beddelaa atmosphere ha noqdo cadceed ha noqdo distanskay wax isu jiraan ha noqdo xataa atomka nuclearka wasnigiisa ha noqdo proteinka wasnigiisa ha noqdo spaceska u dhaxeeya ha noqdo forceska isku haya ha noqdo wax kasta oo nolosha ka mid ah oo wax laga beddelaa waxay keensanaysaa bay leeyihiin inaan nololi jiri karin taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa waa sida uu u dhigay Antoni Fuluye waa kownun ucidda lana buu leeyahay waa waxaynu joognaa duni laynoo sii diyaariyey duni qaabka loogu noolaanayo iyo qaabka tahay dhammaanteedba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sii diyaariyey waxay leeyihiin waa duni fine tuned ah oo markaaynu fine tuned tilmaamayno macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo yaallaa meesha uu saaran yahay haddii in yar laga qaado inaanay noloshu jiraynin ولذلك بو أحدهم وحلا يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون بيري waxay u muuqataa buu leeyahay dunidu inayna sii ogeyd inaynu imanayno waayo siday u taallo wax kastoo ka midi walidaalika baa laba ka mid ah fiisiyaanada waxay qoreen the privileged planet yani planetka la doortay ama waxa gaarka ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala haddaba burhaan ilbashari iyo markaan isku daro burhaanu nadm burhaan ilbashari anthropic principle iyo fine tuning burhaankaa markaan isku daro labaduba waxa ay tilmaamayaan adduunka kan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jaangooyey nolosha aadanaha intay ka warrameen hadday cirta iyo hadday dhulta iyo hadday bad tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday hawo tahay iyo hadday roob tahay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inoogu sheegaya wuxuu nimcay inoo diyaariyey intaasoo nimci inay sidan diyaar isugu ahaato oo dabeetana nolosha bini aadamku ay ku suurtowdo waxa diyaariyo keliya rabbi subxaanahu wa tacaala ma aha wax coincidence ku dhaca wax kastoo noloshan ka midi iftiinka cadceedda ilaahay subxaanahu wa tacaala enerjigu inaga siiyaa noolahoo dhammi ku noolyihi waayo haddaan enerjigeeda la haynin dunida wax chemical reaction oo ka dhici lahaaba ma jiro caleenta yare geedka ku taalla waa warshadda ugu weyn ee dunida ku dul taalla uguna qayliya buuq yar soo moogada caleentu inay tahay waxa noolaha dunida kor saaran oo dhan quudiya waxa noolaha kor saaran dunida oo dhan geedka iyo xoolaha iyo waxoo dhan caleen baa soo saarta waxay cunayaan caleentu geedkay soo saartaa wuxuu cunayo geedkana xoolo iyo wax nool oo dhan baa daaqa waxaan noolna waa isa sii cunaan waxa laaliya waxa kownkan aynu saaranay saaran maanta dhulkaynu saaranay saaran warshadda keliga soo saarta waa caleentaa yar iyana photosynthesis yar oo ay cadceedda inooga qabato ayay farsamadoo dhan ku samaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ifkaasuu cirka ka keenay inta gamma rays iyo waxaa rayse violet caafimaadka waxyeelo oo dhan atmospheriga laynagaga celiyey spectrumka atmospheriska lightka soo dhaafaa intuu yahay waa inta nolosha ay u baahantahay 7 colorskan iyo inta yare ku xigxigta xataa badda markuu ku dhaco iftiinkaas مثلا casaanku spectrumkan badda markay biyaha nalku ku dhaco casaanku 18 mitir buu ku dhammaadaa that means 20 mitir haddaad badda quusto nabar kugu dhaco dhiiggaaga arki maysid waayo wax casaan la yidhahdaba kama jiraan yalowgu markaad 100 mitir gaadhaa buu dhammaanayaa greenka iyo bluegu waxay dhammaadaan maxay 240 mitir waayo iyagu waa kuwa photosynthesiska sida si dhirta baddu ay u baxdo noolaha badda ku jira si uu geedkiisu u bixi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala nalalka kaloo dhan meesha sokaa lagu reebay laakiin greenka iyo bluega photosynthesiska waxay ka kariyaan dhirtu cunnada ka sameeyaana ilaahay wuu sii daayey ilaahay ay ka gaadhaysa 240 mitir roobka cirka ka soo da'aya biyaha ilaahay wuxuu ka dhigay dissolvable wax kastaaba ku milmi karaan inta ugu badan mineralsku waxay ku milmaan waa biyaha roobku markuu soo da'o ee webiyadu dareeraan
5 bilyan oo tan oo kimikala bay badda geliyaan oo nooluhu u baahan yahay hadduu dhulku abaarsado baddana waa abaarsanaysaa roobkaasi hadduu di'i waayo ilaahay muxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun cirkaasay jirtaa baa ilaahay yidhi arsaaqdiinna iyo waxa laydin yaboohay dhammaantiin roob hadduu di'i waayo kalluunkuna wuu dhammaanayaa badda waxa ku jiraana waa dhammaanayaan waayo mineralskay dhulka ka helayeen oo dhan heli maayaan bale oxygen ku filan heli maayaan waayo roobka badda hela waxyaabaha uu badda geliya waxaa ka mid ah oxygenka saa daraaddeed kalluunka laftiisa abaarsanaya hadduu roob heli waayo noloshan sidan u dhisan ee ilaahay subxaana wa tacaala saatan u sameeyey biyuhu khasaa'ista ay leeyihiin noolaha kaloo dhamme male chemicalska kaloo dhamme male walidaalik biyuhu markay 4 degree gaadhaan baa densitigoodu ugu culus yihiin hadday ka hoos maraan waa maxay wuu fududaadaa waa sababta ilaahay ugu talagalay in badda waxa ku noolaaday ay ku nool yihiin wailaa hadday 0 degree markay sii gaadhaba hadduu densitigu sii cuslaanayo barafku hoostuu mari lahaa iminka barafku dushuu sabeeya hoostana biyaha sabeeya haddii biyuhu ay la mid noqon lahaayeen materialka kale markay sii qaboobaanba densitigu culaysku sii badan lahaa oo biyuhu ay barafku hoosta maro noolaho dhamma waa dhiman lahaa ilaahay markuu uu kala bedelay baddaa waa la dhanaaniyey lowlaa aanay dhanaan ahayn dunida qurumuun baa loogu dhiman lahaa milixdaa ay tahay ee leedahay ayaa badda waxa ku baktiyey iyo waxaynu ku gurayno iyo waxoo dhan urtooda bedeli lahaa wa ilaa dunidoo dhamme ur bay u dhiman lahayd hadday biyaha baddu macaan yihiin waxaynu isleenahay hadday baddu inoo macaanaato mala biyaad ka dhergi lahayd baad isleedahay maad noolaateen yacni noloshan sida ilaahay u dhiga ay u taallo hadday bad tahay iyo hadday berri tahay hadday xayawaan tahay hadday miqdaarka biyo ee cirka ka soo da'aya tahay hadday temperature tahay hadday يعني dhulku waxay dhahdeen ilaa 100 degree buu temperaturekiisu kala sareeyaa marka loo eego equatorialkiisa iyo maxay iyo north polekiisa haddaanay sidaa ahaan lahayn bay leeyihiin nolosha ma jirteen wax kastoo innaga aynu isleenahay malaa sida kale ku fiicnaan lahaa scientifically waxay leeyihiin hadday sida kale ahaan lahayd noloshu ma jirteen taa macnaheedu ayuha alikhwa waxa weeyaan dunida tan aynu ku noolahay وهالكا ونك ساينسيهان كي كليهي وتايلر ميد فور مان بودي وبهال لو دواريي بني ادم كان لو دواريي والا انت نودم اني صدفه ku dhacdo ko chance ay ku dhacdo waa waxaan suurtagal ahayn waanaynu shalay soo tilmaamnay waxa laaliye waxay sheegayeen ko chance ko dhameynaan waxba ka jirin wala badaliil waxa aan sheegay mid waa qadiyatu taskhiir ama mabda anthropic oo bini aadamka noloshiisa in waxaan loogu talagalay in kownkan cid musammima oo si takhtiitiso ku talagashay noloshaasi inay ka jiri karto ay jirtaa ka labaadna waxa weeyaan inuu fine tuned yahay meel kasta halkay saarantahay haddii in yar dhan looga dhaqaajiyo plus or minus dhanku u dhaqaaqaba inaan noloshu jiraynin daliilka saddexaad aan tilmaamayno daliil kastaba saacad u qaadan lahaa haddii la sharxayo waa daliilu liijaad aw ilxuduuth waa daliilkay falaasafadii horena daliishan jirtay culammadii mutakalimiinta ee muslimiintuna daliishan jireen thomas aquin iyo qoladii dambe kristanka ahaydna ay daliishan jirtay ilaa haddana dad badan ay daliishadaan daliilu lxuduuth aw daliilu liijaad waxa weeyaan aayadda qur'aan ee ilaahay leeyahay am khuliquu min gayri shayin أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إلهي وحلي أم خلقوا من غير شيء ضدكم وحلا أم بالأبوري ميسكا هذينو ميسكا سما اسمينو أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون سيجا بيصابوري فرانك ألان نيلا هذا بروفيسور 40 years بروفيسور ها وقضية الربا إنه مثالية بوحيده دونيدو حقيقة بهدين سويدينه أفر جوابودهم بتشربوا لي جواب شراد ما شرته أفر جوابودهم بصورة قلا إن تلاده بيقولوا وين الريان إن دوني بما شرته أحباب ما شران هذا فيلسوف رزق قرب سيدا كده ضاير هذا أنا وحاجة بحث أدوي إن تشرتي إن تشرين موجي رياليسم كقيب كم إذا سامسن وعامسي سيلبا waxay yiraahdaan wixii maskaxda ka baxsani
ومتتولك مسكحدين وحقيقيين أنا وهين لما عطين كره ساسي قارو فكرين لكن وحولين إنه وحدرين منه وهالكي دي كارت لقى شيء أنا أفكر إذا أنا موجود كي لها I am thinking so I am واجرة والله سيبوا لي مرة بدنكم بحين مايو كلبات وين إنه نحن محي والله أبوري وعد كلو أزلي يا أبورتي وإنه دوني دو حادث واتمي مربي بلا بنتي ككله وين ندانو إيدا بقى أزلية eternity إيدا له ولقيت بويسو شرت سيدنا ويو شرت جيلونيوس فيلسوفر كله أورن شرين محل إيدا هذا أها كوي هره وين الجريجي هره أيوة حدودني دنو ولقيت بويسو شرتي sababta cadaynaysa waxa weeyaan cadceedan intaynu taariikhda soo gaadhay buu risaasu bay soo baxaysay una dhacaysay loo arkayay isma bedelin ma yaraanin ma weynaanin wasiidii therefore everything sidan bay weligeed buu soo jirtay buu tilmaamaya imaam al-Ghazali ayaa xilligiisii markuu falsafada radinayo wuxuu ku lahaa الشرط اللازم منطقه waxay ku tilmaamaan baad samaysatay buu leeyahay laazimna ma shaygu markuu baabaayo inuu dhubul inuu soo بختية صوب بختية ما شرطي بس عمر قولوا ما وضع بختي كرو شرطي ما هو شرطي يعني في علم المنطق غير لازمة هنا تلاحظوا واحد صوب بابا يا وينو صار انت مر قولوا وضع دمان كرا قفوانو بكون كرا مدو ودمان كرا ما هر قولوا نفته سكت بك عقب بحكرته لكن ده ساينس قاعد السبوح وشيء هنا دمان السبع مالي والبا انت اسب بليروتن او انرجي بحساب that means waxa weeyaan hydrogen bay helium u rogtaa heliumku waa aashiskeedii waa dambaskeedii dabeetana waa sii dambasoobaysaa dambasnimaday ku sii socotaa inay dhimanayso imika cidi muran kaga ma jirto laakiin Jiilonius waqtigiisii aqoonta halka ma gaarsiisanay waxaan uga jeedaa wuxuu leeyahay war waxa soo haro dhamaan buu leeyahay waa laba mid oo azalinimada cid aynu siinayno ma dunida azal ah oo weligeed jirtay eternity مسينا نحن إياد من نقول كرتة إلهي eternity إله أزلي أبوري هدي أي نبورين كرنا بولاي دوني ديناني ويلقيت سوتشرين أي نبورينه alternative كلام ما صار حدنا نحن إله بأبوري موياني واقي هره materialist كي هره أما ماركيسم كي materialism كعدة أمي سنة ده واحد رميسني دوني ويلقيت سوتشرتي لكن ساينس كعسبوه بيني وحمانة الرميسيين إنه عمري قوام بلاغ إن لبا حسابين كرا مركز صواب بلعبانطي ومسألة تاريخ الفيزيكس كمركز الله قدر سيور دير إنه نكورنا ألبرت أينشتاين 1915 مركز وصوص على قاعدة دي سيكو صاب السنيد general relativity دوني دو واحد رميسيين مركز إنه ستيريس كتايساس يعني كدودي جيرين dabeetana wiil yar oo 22 jir ah oo raashana jaamacadaha raashinka jooga ba xisaabiyay dabeetana wuxuu calculation kaagaasi haduu sax yahay dunida ama way yaraanaysaa ama way badanaysaa ama way faafaysaa ama way soo yaraanaysaa Albert Einstein wuu diiday haddana George Lamartine in la oran jiray Belgium ahaa wadaad fiisiisyahan ahaa ayaa dib u xisaabiyay wuxuu dunidu way ballaaranaysaa waliba fikradda haddana Albert Einstein wuu diiday Hubble ninkii la oran jiray Edwin Hubble waa fiisiisyahan astrophysics Mareykan ah markii ay sameeyeen California buurta ku taala telescope-kan saaran ee ugu weyn waaga Hubble wuxuu ahaa markaa groupka wax ku eegan ninka odayga ka ah calculation buu sameeyay redshift baa u soo baxay redshift-ku waxa weeyaan warkoo kooban spectrum-ka haddii loo dhigo ifka midabada soo baxa soo maaha casaanka sarreeya xagga kalena blue ba xiga iyo ultraviolet rays iyo kuwa kan shayga haddii casaanku uu soo bato macnaheedu waxa weeyaan uu ka sii durkaya hadday xagga blue-ga u badatana macnaheedu waxa weeyaan uu soo dhawaanaya marka ifka shayga ka yimi muddo marka la qiyaaso wax la garanaya shaygaasi inuu inaga sii durkayo iyo inuu inagu soo socdo
waa sida codka oo kale gaadhigu markuu kaa sii socdiyo markuu soo socdo maxaad ku kala garataa marna guuxa isa soo taraya dee baynu dhahnaa soo maaha oo soo dhowaanaya that means wavelengthkaa soo yaraanaya marna guuxaa sii durkayo sii yaraanaya that means wavelengthkaa sii dheeraanaya red wave-ku wuu ka ballaadhan yahay maxay blue waveska saa daraaddeed markuu kani soo yaraadana wuu soo dhowaanaya weeyaan mar kale wuu sii fogaanaya telekoskii waxay ku arkeen galaxiskan iyo waxaan inugu jiro iyo waxaan oo dham inay sii durkayaan dabeetana waxaa dhab noqotay dunidu inaanay taagnayn inay faafayso wax hadduu socdo dee macnaheedu waxa weeyaan meeluu ka soo bilaabmay baa jira saxaynka maaha dad dee dib u noqoto saa daraaddeed lamartiin wuxuu u bixiyey daybi maalintii aan maalini ka horraysay buu yidhi maalintii aan maalini ka horrayn ayuu u bixiyey maalintii aan maalini ka horrayn soo wad adigu hadda markii wakhti laga soo wareegay microwave radioga markii la helay 1964-65 laba ninoo bell company u shaqaynayay oo hoon anteena samaystay anteerooyinkan satellite-yada lagu eego dhankooda si ay signalska u qabtaan ayuunbaa tashuush ka bixi weyday akhiiran waxaanay filayn unbaa kaga soo baxay oo ah cosmic microwave waxay ku tilmaamaan cosmic microwave-ku waa microwave-yada inaynu shidanno radiationkay soo saaraan oo kale oo ay leeyihiin qaraxii dunidu markay bilaabantay ee qaraxda qiiqi ka hadhay weeyaan markay baashu qaraxday koowaad bugtii hore qiiqi ka baxay oo inuu qiiqaa yahay maxaa lagu caddayn karaya waxay leeyihiin waa in everywhere laga helaa labada nin 1978 baa Nobel Prize lagu siiyey haddana 1989kii dayax-gacmeedyadii uu Maraykanku dirayay ayaa la yidhi bal halkan keedii qiyaasano 3.something waa la hayaaye cirka iyo meelaha kalena la soo qiyaaso isagoo nafsu magnitude baa laga helay magnitude-kiina la sidiya waa laga helay haddana 3 professor kale lagu siiyey Nobel Prize haddana 2011kii markii ay arkeen supernovada ay haddana xisaabiyeen bay waxay garteen accelerationka bahalku qaraxu accelerationkii uu ku socday haddana Nobel Prize kale lagu bixiyey 3 jeer bay dunida Nobel Prize lagu bixiyey bahalka qarxay la sheegayo idan waxay leeyihiin warkiinii odhan jiray dunidan weligeed bay soo jirtay waa beentiin saynisku wuxuu leeyahay bari dhaweyd bay bilaabantay aan siiba fogeyn adduunka kani bari dhaweyd aan siiba fogeyn ayay bilaabmeen cadaymo badan baa la hayaa bay tilmaamayaan waxaa ka mid ah second law of thermodynamics waxaa ka mid ah microwave radioga waxaa ka mid ah yani big bang theory waxa ku xidhiidhsan oo dhan waxaa ka mid ah helium maxaa la yidhaha hydroginku proportionka ay dunida u joogto waxaa ka mid ah yani iminka evidence tiro badan bay hayaan oo ay ku caddaynayaan inay beri dhoweyd bilaabantay yaa bilaabay markaaba isweydiin leh from singularity waxay leeyihiin atom materialka iyo energyga iyo timeka iyo spaceka wuxuuba mar quray wada bilaabmeen yaa bilaabay allahu badiicu الsamaawaati wاlard waxaa jiray wakhti baa ilaahay leeyay kaanataa ratqan fafataqnaahuma maray bahashuba kuus yar ahayd waanu kala dilaacinay baa ilaahay leeyay subxaanaه wa tacaala walidalik baa ninkan la yidhaahdo Krieg PhD-diisii wuxuu ku qaatay waxay u bixiyeen kalaam cosmic argument kalaamka ma garanaysaan waa cilmulkalaamkii muslimiinta cilmulkalaamkii muslimiinta masaladan daliisan jiray dabeetana intuu eraygii soo qaatay ayuu wuxuu u bixiyey kalaam cosmic argument maxaa la yidhahdaa Birmingham University buu PhD-giisa kaga qaatay isagoo qaacidadan yar oo leeyahay Imaam al-Ghazali baan ka soo qaatay إمام الغزالي في كتابها المقاصد وكسو قاتب PhD كدياري قاعدة وإنت تو premises هي النتيجة premises ككواد every cause وقانون السببية wax kastoo xaaditho kastoo dhacdo mar bilaabantaa sabab bay leedahay xaaditho kastoo waxba iska dhacay miyaad aqbalaysaa maya caqliga bini'aadamku sidaaba uma samaysna bay leeyihin waa waxay ku tilmaamaan maxay axiomisku waxa weeyaan waa qaanuunka uu ku salaysan yahay philosophiga iyo science-kuba
axiomisku waxa weeyaan wax ka soo dhacay sabab loo raadiyo haddii aad rumaysato wuxuu inuu iska dhacay dee sabab uma baahnid that means kawnkuba fawdu noqon lahaa biyaha marna laydh isu bedeli lahaa marna waxaan bacaynka wax waliba dee iska dhici kari lahay laakiin wuxuu wax la darsi kara iyo cilmi inuu noqdaa waa inuu reasoninka aqbali karaa بريمسيسكاس bay leeyihiin bini aadamka oo dhan isku waafaqsan duniduna mar bay bilaabantay waa بريمسيسكا labaad kaana waxay leeyihiin sayniska imika cadeeyay muran uma baahna qoladii murmi jirtay meesha way ka baxday Fred Hoyle nin la yiraahdo mulxid ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu keeno theory la yiraahdo steady state theory sida saliska bini aadamku ay u samaysmaan dunidu weligeed bay iska jirtay marka wax cusub samaysmo caynkana isna theory-giisii uu socon waayay multiverse theory bay isku dayeen way socon waayeen all the other theories lama hayo theory qoraal haya waxa weeyaan waa big bang inay bahashani mar qaraxday shaashi waxa weeyaan ayaa qarxiyay yaa sameeyay xagay ka timi ilaahi baa wuxuu ina leeyahay khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khuliqu ma waxa la abuuray min ghayri shay wax la'aan yaa la abuuray am humul khaliqun mise iyagaa ah baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa wax abuuray labadaa midna ma jirto haddaanay midna jirin waa maxay khaaliq inay leedahay baa soo hadhay iyana waa daliil falsafiya in la sharxaa wakhti badan u baahan ictiraadaadkiisa in laga jawaabo wakhti badan u baahan qadaayadkiisa scientific proofka ay dhinac wadaan wakhti u baahan laakiin waxaan ku talagalnay uun duuduub ahaan inaan tilmaamno marka hadda waxaanu tilmaamnay saddex daliil oo adiladay sheegaan mid waa inay dunidu fine tuned tahay inay meel saaran tahay oo 1 divided by 10 to power of 18 of a second in leeg hadday wax isbedelaan inaanay jiri lahayn wax kasta oo la qiimeeyana siday hadda yihiin haddii wax yar laga bedelo inay kharibmayso kaasi waxa uu sheegayaa bay leeyihiin qorshe inay dunidan ka dambaysay ilaah muriida oo doortay meel waliba inay sida noqoto biduuni iraada ma dhacdeen caliima oo og hadday sida kale u dhacdo inay xumaanayso xakiima oo halka ugu quman u doortay qadiira oo awoodi kara inuu doorashada yeelan karo ilaaha sifaadkaa leh soo ma maqashaan culamaa ilkalaam oo ka warrama asifaat sabca sifooyinka toddobada ay sheegayaan waxa weeyaan waa kuwa mentally qofku isagoo aan sharciba eegin uu kownkan ka fahmi karayo ilaaha sameeyey inuu kuwa ku sifoobo inuu caliimiyey inuu qadiiriyey inuu xakiimiyey inuu muriidiyey yani sifooyinkaasi waxay leeyihiin logica caadiga bini aadamkaa tilmaamaya saa awgeed waxaynu leenahay fine tuned bay dunidu tahay maantana aqoon-yahanku intooda badani waa tilmaamayaan haddana fine tuned ha ahaatee meesha ay ku sallaxantaa meeshii noloshu ku suurtagal ahayd oo qura oo iyana waxay leeyihin waa mabda ilbashari cid ina ogeyd inaynu meesha iman doonno ayaa inoo sii diyaarisay waa kaa uu leeyahay antony flu waa qurfadaada laga soo diyaariyey unbuu leeyahy waa inay jirtaa cid baahiyahaaga garanaysa wax kastoo aad u baahan tahay oo halkan sii dhigtay markaad caloosha hooyadaa ku jirtay waxbaad u baahnayd baahidaada ilaahay halkaas u dhigay markaad ka soo baxdo waxbaad u baahnayd halkuu keenay caloosha hooyadaa markaad ku jirtay ilkamaad lahayn waayo umaad baahnayn markaad si dabadda timi ilkaad u baahatay waa laguu soo bixiyey saxiixa maaha caloosha hooyadaa markaad ku jirtay waxba maad arkaynin arag umaad baahnayn markaad dabadda dhalatay maalmo joogtay baa indhaa lagu dilaaciyay waxbaad arag ilaahay wax kasta markaad u baahnayd buu sallaxay wax kasta markeedaa loogu talagalay idan cid baahideenna og baa sii qorshaysay isna waa mabda labaad oo la daliishado mabda'a saddexaad aynu tilmaamnay waxa weeyaan waa mabda'u liijaadi waalkhalq yaa abuuray kownkani weligii buu soo jiray way beenowday waxa dhaba inuu mar bilaabmay yaa bilaabay waa inuu jiraa ilaah caalimo oo qadiir oo awood badanoo waxa kan bilaabay wa huwa allahu alqadiir ilaahay baa jaangooyo sida tan u dhisay idan mas'alada tani waa mas'alo aad u fudud marka ay joogto dee adduunka waxa ku noolinaa inay rumaysayin bay u badan yihin weligeedba minority group yar bay ahaayeen malaaxidadu fii ayi baab bay minority ku yihin
حتى dadka barba u haysta malaa'imka jaamacadaha dunida iyo waxa ka saynisyahanada jooga maya saynisyahanada jooga waxay u badan yihiin mabda iluluhiyya mar rubaysna laakiin mabda rububiyya bay rumaysan si kale haddaan u tilmaamo diintii dalkooda taalay way ka shakiyeen oo christianity asbaaba inay shakiyaan keensadayna taariikhday soo martay ama ha ahaato qaladaad ay kitaabka ka heleen ama ha noqoto kitaabka iyo taariikhdiisa madmadow badani galay markii la baadhay ama ha ahaato wadaadadii kitaabka haystay oo dadka nafta isugu keenay oo ku amarku taagleeyey oo dee waayada qaarkood ninkii waxay iyagu sheegaan bay saynis ka dhigayeen intay griigii hore ka soo naqliyeen bay yidhahdeen saasay diintu qabtaa ninkii waxaan ahayn sheega waa hartaqadu waxa weeyaan waa bidcoolaana waa in la dilaa weliba xukunkiisu waxaa dilaan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa in la gubaa weeyaan xataa meelaha qaarkood carruurta bidcooluhu dhalo waxaa la odhan jiray qatluraxma iyaga dilka naxariista leh ka yar inta biyo lagu ridaabaa lagu bakhtiinaya marka isaga waa loo naxariistay in biyo lagu dilay aabbihii baa dembiile ah waa maxaakimu taftiish waxay xukumi jireen kaatoligu waxay dadka ku xukumay weeyaan dabeetana dee nin arkaya xidig wareegayso la leeyahay ma wareegaysa haddaad tidhaahdo way wareegaysaa waa lagu dilaya wuxuu leeyahy diintaad haysata waxba kama jiraan laakiin akaruhum waxay rumaysan yihiin diisamku waa maxay waa arububiya diisamku waxa weeyaan supernatural inuu jiro war dunidani ilaah la'aan ma jiri karto cid samaysay baa jirta laakiin wadaadadani diintay sheegayaan sax maaha bay leeyihin akaruhum baabkaasay taagan yihiin maxay hore ugu socon waayeen innagaa habsaannay innagay ahayd inaynu keenno maxay diinta sax ee fajwadan buuxinaysay ee aan ka hor imanaynin saynisku xaqaa'iqdu gaadhana aan diidaynin waayo galileo dooddiisii waxaa ka mid a markii maxkamadda la taagayey ilaahay kitaabkiisu buu yidhi iyo ilaahay kownkiisu afcaashiisu marnaba in isburiyaan suurtagal maaha soocaykaa maaha imaa kitaabkuunbaa wax ka qaldan yihin oo aan kii saxa ahayn imaa fahamkaynu kownka fahamnay unbaa wax qaldan yihin laakiin inaynu idhaahno dunidana ilaahay baa abuuray kitaabkanna ilaahay baa soo dejiyey haddana isku wax sheegi maayaan waa waxaan dhici karin ilaahay markuu hadlayay miyaan wax ogayn wixii uu abuuray waxaan ahayn buu ku hadlay macquul maaha saa daraaddeed iyaga mashkiladda qabsatay waxa weeyaan kitaabkoodii iyo kownkii baa isu waafiqi waayey saa daraaddeed baa diin darro badan ku riday kitaabkoodii iyobaa isu waafiqi waayey maxay iyo kownkii laakiin innaga waxaan leenahay masale kastoo xaqiiqa cilmiya ah hadda maaha theory حقائق علمية وإحنا وثيري hypothesis وإحنا وحقائق مسألة حقيقة علمية وكتاب يسوع كسور جدا ما شرته سيدا وجد بو ابن تيمية كتاب كيسي ويرايا كوبيا تونك مجلده هذا هو قري وحين لو نشري محي درء تعارض العقل والعلم يوها إن وكهرت جايين إسبوريان عقل جاي علم حق الرب كيم مركب وحين لا نحي مشكلة الدنيا التاجن وايدنك iyo aniga iyo inta muslimka inaga dambaysa waayo inaga waxaynu dadka gaarsiin kari weynay sidii kownka iyo ilaahay kalaamkiisa ay isu waafaqayeen ay dadku uga bixi lahaayeen diin la'aanta iyo atheismka waxa keenay markaa inay ka cararaan diin ay u arkayeen inay qaldaneed wallahu aclam billahi tawfiiq جزاه الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كوسارو شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون iyo muxaadaradii qeymka ahayd ee ku saabsanayd dadka ضفرسن إلهي سبحانه وتعالى جريتانكيسا إن شاء الله تعالى وحا إنه وحي قدونتا محاضرة الشيخ أحمد دايرويس وأنا نوفر يا شيخي